waqtigii iigu fiicnayd ay ahayd aan warbaahinta ku jiray oo anigoo muddo soo waday runtii markii aan anigu dugsiga sare u ka baxay oo aad garan karayso gabadh yar oo teenage riyooyin badan iyo maaragtay le inay hammi sare iyo inay meel gaadho baa wixii ugu horeeyay ee anigu maskaxda aan ku hayn jiray waxay ahayd inaan noqdo wariye inaan noqdo marka taas ay igu dhiirigelisay waxaan jeclaan jiray inaan noqdo dadka wax soo bandhiga wax cusub sameeya yani meelaha qaar focus ka saara marka taas waxa igu kalifay wadada kaliya u mari karaa inay tahay inaan markaasi suxufiyad noqdo alxamdulillah ilaahay wuu ii suurtageliyay nimca samriye markaan isku baranay Home Cable TV wayna aad u wanaagsan boqolkiiba boqol dhowr jeerna waan sheegay oo muhiimadan saxaafadda ku jirto boqolkiiba boqol aad u wanaagsan marka halkaas aan isku baranay markii ugu horeysay inaan hor fariistona waa markii bulshadu baratay ee aan qaadayay heestii urugo uu ii dhibay Axmed Salmaan Bide hadduu unkod yahay jacaylku micii roob soo iftiin kuwa ina soo abaaray anigu waan u yeedhi lahaa oo Allahan ka bari lahaa adaan soo maran lahaa habeenka aan noqdayna horteeda baan fadhiyay unkod yahay jacaylku roob soo iftiin والله هذا مسكحة دب عليو لبدي كن إيو لحدي بان هون كيبل تيفي عن شقة كبرابي وحنا هاد ماشي ده شقة كلي لما مرة كرم ميلان كسر دح برباري ميلان كسر دح برباري وأنا قلت تينيج إنتان تجي نلاش الصوت هاي الدريم كريسو أنا إيه هاي نجوب شقة لكن هاد ميلان نقعد مركزي كسر دح كري بابا أورا كرابة وهبين كي يجوه الرئيسي أنا وهود الجرا وحنسي أنا برنامج تبيو waxaad nasiib u yeeshay in noqoto habeenka horeysay TV uga hawada galo isla mar ahaan taasi barnaamijkii habeenka anagu ma naan dooran oo ma oran karin barnaamijka ay diiba laakiin barnaamijkii u horeeyay ee habeenkaasi markaa hawada lagu sii daayay wuxuu ahaa barnaamijka salaamaha oo markii dambana anigu magac ahaan baridiye bogaadin sidii magac ahaan aan ku qaatay laakiin waqtigaasi barnaamijkii salaamuhu ahaa saas hawada ku gal habeenka horeysay TV uga hawada galan way horta sidaan hore u sheegay waa inaan muhiimadda saxaafadda aad ugu wanaagsan heesaha markaad la hortimaadana miraha markaba way xafidaa inta ugu horeysa waa iyada bulshada fahansiisa waa wariye hortiisa markaan fadhiyo aanan nixin oo aan sameeyay su'aal khaldan ku weydiinay oo inoo furan iyo wanaagsan wax allaali waxaan ku qiyaasay anigu ma garanayo iminkana soo noqoshadeedan ay ku soo noqonayso saxaafadda iyo astaanba laan waad baan u faraxsan waayo marlabaad inaan horteedii fadhiisto oo heeso badan soo qaato oo idaadiso oo faraxsan horta waxayga u badan anigu qabta madadaalo ahaa madadaaladuna inta badan waa farxad ma arkaysid maalmaha wax bay kaa cadaysay ma arkaysid waxa dhacda barnaamijyada qof baaba ay imanay tusaale ahaan waxaan anigu iloobin gabadhan wareysi ka qaaday oo fanaanada hay oo farxiyo weerin jiray baa waxay ka sheekaysay inay nin jecleed 14 sano oo wali ay sugayso taasoo kale dareen bay xilliga igu abuurtaan studio joogaban iska ooyay sida anigu inaan iyada sheekadii ila wadaagtay fanaanad bay ahayd barnaamij madadaalo laga sugayay buu ahaa dib baan anigu u ilmay yani waxay ku tusaysaa wax madadaalo aan baan ku dhex jiray laakiin mararka qaar dhacdo qof la koontay baa adiga murugo ma aragtay ninkeedii buu ahaa dib waxay tiri umaanan arag kuwaasoo kala ma aragtay laakiin inta kale madadaalo iyo qosol buu ahaa wax qaban jiray nimca samriye waxay ka qaadatay fankayga wax weyn
waayo habeenkii bulshadu i baratay hon cable TV baan fadhiyey heestii aan qaadayay urugayhay barnaamijkii kale aan horteeda fadhiyey dhowr barnaamij aan horteeda fadhiyey marka dee waxaan ku cabiri karaa haddaanu nahay xidigaha geeska gabadhaan horteeda ku soo caanbaxnay iyo hon cable TV ba saasaan oran lahaa haddaan kelmad ku cabiri lahaa waa gabadhaanu iyadoo wariye ah horteeda fadhiisanay caan ku noqonay runtii waqtigaas anigu aan ka baxay waqtiyadii la oran karayay waqtigii iigu fiicnayd ayay ahayd aan warbaahinta ku jiray oo anigoo muddo soo waday yacni dadka aan oran karo badankoodu way xiiseynayaan aniguna waqtigaasi shaqada aad baan u xiiseynay ayay ahayd waxay igu kalifto mar kasta su'aal mar kasta dadka weydiin jiray ahayd maxaad uga baxday weli meel ma soo fadhiisan kalan jawaabin haddaan se hadda ka jawaabo dareenkaasi yacni waxa cabiri karayso gabadh uguga oo markii ugu horeysay hooyo noqotay ba dareen ka cabiri karta TV ahaan markaan anigu shaqada qaatay waxaan rabay inaan ku noqdo warbaahintii laakiin marka aad dhasho ilmo yar ee aad tahay hooyo ee markii kuugu horeysay wax yaroo dee inta leego yar aad ma aragtay dhasho way ii noqon weyday ilmahayga yaraa intaan dhigo markaan umushii ka baxo inaan dib ugu noqdo noloshii iyo shaqadii deetana waxaan doorbiday ilmaha yar maadaama u baahan yahay dee laabta hooyadii iyo diirimaadka iyo naaska hooyadii in wax kastoo anigu jeclaa waxaad jeceshahay si aad u hesho waa inaad uga goodo wixii aad jeclayd haddaba anigu xilligaasi shaqadeyduna aad u jeclaayo warbaahintaan ku dhex jiray baa waxaan uga go'ay maadaama hooyo ahaa dee naxariisna hooyadu ma aragtay ilmaha ugubka hadda oo kale waqtigu sidii maaha oo dee maasha allah tabaaraka allah 4 ciyaaran leeyahay laakiin waqtiga ilmihii ugu horeeyay ma aha yacni way igu adkaatay inaan shaqadayda sii wato inaan naxariistii ilmahayga yara inaan koriyo sidaa darteed baan uga baxay waxaa jirta 9 sano iyo bar baan anigu hadda ka maqnaa warbaahinta 9 sano iyo barkaasi marba marka dambe markaan sirada dadkaaga way ku iyoobin ku daawan jiray ku jeclaa ha noqoto maraan meel ku kulano iyo ha noqoto fariimo la ii soo diro su'aal isku mid ah bay dadkaasi weydiinayaan waxay oranayaan goormaad ku soo noqonaysaa waad ka baxday goormaad ku soo noqonaysaa waad ka baxday goormaad ku soo noqonaysaa in badan baan su'aasha ka jawaabi kari waayay laakiin hadda waxaa la taagay xilliga aan ka jawaabi lahayn oran lahaa sidaad ii jeceshiin badan waan idin jecelahay dibna waan idinku soo noqday mar kalena waynu soo hornay waxa igu kalifeen hadda dib ugu soo noqdo waqtiga ilmihii aan uga baxay inantaydii yarayd maanta dee waa 9 sano barbi jirta maasha Allah tabaaraka Allah gabar weyn oo talinaysa class 4 weeyaan ilmihii ku xigay waa class 3 inankayga ku xigay hadduu isna bilaabaya iskuulka bilaabay marka waxa ku cad deewaan koriyay maasha Allah tabaaraka Allah marka hadda inaan dadkii jeclaa aanan in badan dee dhageysan markii leeyihiin maxaad u maqantay anigoo su'aashoodii ka jawaabayaan marka la yiraahdo anigii waa kan waan idin hortaaganahay saasaan anigu soo noqday waxa jirta guri joog baan ahay gurigan fadhiyi jiray waxaan raadin jiray barnaamij madadaalo ah oo maaragtay aan daawado TV-yada Soomaalida oo dhan marba mid baan geyn jiray waxaaban u arkay in kaalintii madadaaladu weli ay bannaan tahay waxa kale oo arkay in fursad in la siiyo ay tahay oo ay jiraan inta dabada ay soo baxeen dhalinyar badan oo fanaaniina oo kuwaasi hadda ay tahay in fursad kale la siiyo oo heesahooda hadday noqoto in la soo bandhigo kuwii hal abuurka hal abuurkoodii suugaanta la soo bandhigo muusishano cusub baa dabaday soo baxay kuwii in ma aragtay iyagana sidoo kale marka inaan qolada wada shaqeyno sidaa darteed baan hadda dib anigoo rabay inaan dardar cusub ma aragtay halkii ka sii wado barnaamijkii baan rabay inaan halkii ka sii anba qaado insha Allah